munaasabad aad u bilan oo ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soljaha iyo gudoomiyihii hore ururkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadda xil wareejinta labada gudoomiye waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, la taliyaha gaarka ee arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Somaliland, gudoomiyihii hore ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soljaha, xubnaha guddiga sare ee ururkaasi iyo saxafiyiin aad u tiro badan. kusimaha agaasimaha ahna agaasimaha fulinta ururka Soljaha mudane Ilyas Cabdilaahi ayaa ugu horeyn ka waramay kaalinta iyo doorka ururka Soljaha ugu jirto minadlayaasha kala duwan ee warbaahinta Somaliland. saddexdii sano u dambeeyay ururka waxa tababaradii uu qabanayay, kulamadii iyo shirarkii uu qabanayay waxa ka faa'iideystay oo ka soo qayb galay 1865 saxafi. 1865 qof ayaa ka faa'iideystay tababarada uu qabanayay oo uu ka qabtay dhammaan gobolada Somaliland, 6 gobol ee Somaliland. ururka waxyaabaha u suurta galay waxa kamid ah in xirfadda iyo aqoonta saxafiyiinta kor loogu qaado, inuu suurta galiyay isagoo kaashanaya jaamacadda Hargeysa in la aasaaso faculty journalismka oo ay ka qalin jabiyeen 20 arday oo ah bachelor degree. gudoomiyihii hore ururka Soljaha mudane Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo maanta xilkii ku wareejiyay gudoomiyaha cusub ayaa ka hadlay waayihii kala duwanaa ee uu la soo maray ururka oo uu maamulay muddo ku siman 6 sanadood, isagoona hoggaanka cusub alle uga rajeeyay in uu xilkaasi ku astiro. waxaan isleeyahay xukuumaduhu dalkan soo maray ama xukuumadda talada haysa haddii ay weelayso ujeedada saxaafadda Soomaaliland oo abuuran tahay iyo waxa ay qaban karto, waxaan qabaa wax badan oo maanta caqabad ku ah inay kaga bixi lahayd. kulamo fara badan baan hay'adaha dawladda wada yeelan, waxa ka soo baxday xog badan oo saxaafadda Soomaaliland hayso oo wax taraysa oo ay meel ay geeyaan la yihiin. gudoomiyaha cusub ee ururka Soljaha Sakariye Axmed Maxamed ayaa isaguna dhankiisa ballan qaaday inuu si dhow la shaqayn doono dhammaan warbaahinta dalka, isagoona qayb ka noqon doono horumarka iyo madaxbannaanida ee uu damaanad qaaday dastuurka Somaliland. qof kasta ama mas'uul kasta ama urur board kasta oo urur oo uu Soljaha yeeshay meel bay ka qaadeen, meel bay gaarsiiyeen. waxaynu maanta taaganahay meel aynu ka sii aanba qaadi karno hawsha ururka uu hayo warbaahinta Somaliland. marka hore waxaynu Ilaahay ka baryaynaa aniga iyo boardka xubnaha kale ee boardka in uu Ilaahay nagu asturo mas'uuliyadaas culayskeeda laga sheekeeyay ee aanu qaadayno 3 sano ee soo socda aanu dhabarka u ridayno. dhinaca kale la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Somaliland u qaabilsan arrimaha doorashooyinka Cabdilaahi Daahir Cukuse oo kamid ah haldoorka warbaahinta Somaliland ayaa hadallo dardaaran iyo wacyigelin u jeediyay hoggaanka cusub ee ururka loo doortay, waxaanu ka hadlay baahida loo qabo xeerka warbaahinta ee hor yaala golaha wakiilada Somaliland. su'aasha kalena waa su'aasha muhiimka intaanan hoggaanadii gelin ee xeerka ee uu ka hadlayay Xuuto. xeerka waa runtiisa waqti horta baahida loo qabo marar horena waan ka jawaabay, waxa keenaya galdaloolada uu yeeshay xeerka maanta jira ayaa keenaysa baahida loo qabo inuu xeerkani soo baxo. galdaloolada kaliya ee uu xeerka hore yeeshayna waxa weeye gebigiisuba waxa uu u tolan yahay oo uu ka jawaabayaa saxaafadda qoraalka ah ee wargeysyada. saxaafadahan kale oo dhan iyo mihnadahan kale oo dhan ee saxaafaddu leedahay, mihnadan saxaafadda ee fara badatay midkoodna ka jawaabi maayo xeerka hore. ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ee ururka Soljaha, waxaanu ka hadlay kaalinta xukuumadda kaga aadan ee ururkaasi. dal ahaan xukuumadaha kala duwan ee soo maraya nidaamkeena dawladnimo inta badan waxaanu isku khaladnaa markaynu xorriyada qowlka iyo arrimaha saxaafadda ka hadlayno. waxaanu ka dhignaa inta badan inaynu saxaafaddu ama xorriyada qowlku inuu marti looga yahay marba xukuumadda talada haysa. dastuurkeena ay ku qoran tahay xukuumad kastoo timaada waxay ku qasban tahay inay horumariso
dhisto taageerto sidii loo horumarin lahaa qaybaha kala duwan ee warbaahinta si kor loogu qaado xorriyadda qowlka oo inta badan aasaasba waa xorriyadaha badan ee aynu u baahannahay oo kale wuxuu ka bilaabmayaa asaaskiisu noqonaya inaynu helno xorriyadda hadalka oo iyaduna aan ka bilaabmin qofka saxafiga oo noocyo badan oo loo hadlo oo aragtida loo dhiibto oo loo doodo oo badan ama loo jilo arrimo badan oo daraamooyinku ka mid yihiin oo afkaara lagu gudbin kara baa jira marka waxaanu isla qaadanaynaa horta ugu horreyn waxa weeye inay tahay mabda qaran ahaan aynu qaadano dastuurkeena ku cad inaynu mar walba dhisno oo aynu horumarino xorriyadda qowlka xamse xayd wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa